عبد الكريم كسودو برنامج قرامة عيارها تلفزيون كجبلان لو وما سنتها وكنا جبلان تي في برنامج قرامتنا أدبان والله سعنا مقالة مقدشنا وعلى قد وضع وأنا دوهاي وطي عبد الكريم مركر وحنا نقول بحساب جدهان ترتن كي دقموين كقبل كبنادر يجدهان عيارها كردون عاصمة كسعودة يقابك وسعودان وما سنتها عيارها دقموين كقبل كبنادر والله بدي بالصدى في كسعودة مقالة مقدشة يا تطبات كان لقوسه قبل قبيه magaalada muqdisho iyadoo ka qayb galeen kumanaan taageerayaal oo ka kala yimid qaybaha kala duwan ee degmooyinka gobolka Banaadir iyadoo tartankan markii dambe oo dhowr jeer baaqday ku guuleysteen degmada Dharkiinle ee gobolka Banaadir iyadoo 8 sano kadib ay ku guuleysteen tartankan wuxuuna qayb ka qaadanayaa tartamada isdhexgalka bulshada ee degmooyinka gobolka Banaadir ee qabta maamul gobolka Banaadir waxaana tartanka ka qayb galay 17 degmo ee gobolka Banaadir iyadoo markii dambe final ay iskugu yimaadeen ciyaartooyda degmooyinka waa bari oo 3 sano la soo dhaafay final imaanaya iyadoo laba mar kamid ay ku guuleysteen iyo degmada Dharkiinle ugu dambeysay tartanka inay ku guuleystaan 8 sano ka hor tan qayb waxay ka noqonaysaa ciyaaraha sida aadka loo xiiseeyay ee kubadda cagta ee magaalada Muqdisho waatahay 8 sano kadib in ay ku guuleystaan tartanka degmooyinka gobolka Banaadir maxay uga dhigan tahay baad isleedahay adiga ahaan taariikh marka loo eego inay ku guuleystaan tartankan 8 sano kadib degmada Dharkiinle wax weyn ayay uga dhigan tahay iyadoo ilaa hadda dabaaldegooda ka socda degmada waxaan la arkayaa taageerayaal soo huuday calanka degmada iyo finaanada ay ku xardhan yihiin guushu waa degmada Dharkiinle degmada waa bari oo loo soo daalanay tartankan inay ku guuleysanayaan ayaa aad isku soo diyaariyay isbuucan waxaan la arkayay taageerayaal lagu yaqaan degmada waa bari oo maamul ay qayb ka tahay tartankan inay ka soo qayb gashay iyadoo markii dambe rigoorayaal 4-3 looga adkaaday degmada Dharkiinle looga adkaaday degmada waa bari oo gobolka Banaadir ay ku adkaaday degmada Dharkiinle ciyaartan oo ay ka qayb galeen wasiirka ciyaaraha iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa noqonaysa ciyaar aad iyo aad loo jecleystay iyadoo waqti dheer lagu daray oo ilaa 30 daqiiqo ah markii ciyaarta la isla gaaray saqda dhexe habeenkii oo rigoorayaal ay ku qaadeen degmada Dharkiinle isdhexgalka bulshada ay qayb ka qaadanaysa tartankan kubadda cagta ee gobolka Banaadir waxaan uu noqonayaa tartamada kuwooda ugu xiisaha badan marka laga soo tago tartanka dowlad goboleedyada oo Jubbaland hadda difaacanaysa iyadoo sanadkii la soo dhaafay la qaban tartankan ee sanadkan waxaa la filayaa in sanadka soo socdo tartankan la qabto waayay inta uu tartanka socday waxyaabihii ugu badnaa ee laga bartay Cabdi Kariim maxaa kamid ah kan waxaa laga bartay in laba mar uu baaqdo ciyaarta finaalka tartanka degmooyinka gobolka Banaadir oo hore looga baran iyadoo tartankan uu qayb ka qaadanayo sida bulshada ay u arkaan in kubadda cagta ama sportsku yahay waxyaabaha bulshada mar walba dhiirigeliya isla markaasna isku keena sidaas oo tartankan waxaa laga dheehanayay iyadoo maamul cusub ee gobolka Banaadir Umar Maxamed Umar Finish gudoomiyaha gobolka Banaadir uu sheegay in sportska gobolka Banaadir laga hirgelin doono sida loogu talagalay dhalinyaradana ay u heli doonaan sida ciyaartooyda kubadda cagta dunida ay u helaan waxyaabaha dheeriga ee serviceka sida kubadda cagta dharka loogu talagalay sportska alamiitada iyo garoomo heer caalami laga dhisay magaalada Muqdisho garoonka stadium Muqdisho ee isbartiibada ayaa heer gabagaba maraya iyadoo uu ka mid yahay garoomada Afrika kuwooda ugu baaxad weyn 61,000 oo taageerayaal ayuu qaadaa garoonka kubadda cagta stadium Muqdisho taas oo ka dhigan in Stamford Bridge iyo garoomada caalamiga ee Emirates uu qayb lixaad la ka qaadan karo isla markaasna isku waqti ama isku baaxad ay yihiin dhismaha garoonka ee Muqdisho dabcan wax badan ka bedeli doona sportska dalka guud ahaan waxyaabaha ugu badan ee uu ku soo kordhin karo bahda kubadda cagta maxaa kamid ah isleedahay marka laga yimaado in garoonkaas uu xamili karo in ka badan 61,000 oo taageerayaal ah garoonkan isbartiibada haddii la furo wuxuu qayb ka qaadanayaa in dadka jecleystay ama jecel ciyaaraha inay daawadaan ee u sahlanaan karto in kubadda si siman ay u daawadaan iyadoo garoonkan uu yahay garoon dadan oo wareeg ah isla markaasna hadda ay ku guda jiraan wasaaradda ciyaaraha inay kor laga dado maadaama cimilada Soomaaliya uu aad kuleel u yahay taas ayaa waqtigeeda qaadanaysa ayaa la leeyahay sanado kadib laakiin hadda garoonka waa la diyaariyay oo wuxuu noqon doonaa mid kamid ah garoomada ugu casrisan ee geeska Afrika ku yaala isbartiibada ama stadium Muqdisho bariismaadkii waxaa lagu qabtay tartanka bariga ee bartamaha Afrika kaas oo kumanaan taageerayaal dunida ka yimid ee daawasho u yimaadeen wuxuu intaas ka dambeeyay burbur ayaa ku yimid sports gobolka Banaadir iyo Soomaaliya inuu hirgalo oo hore u socdo wuxuu qayb ka qaadanayaa garoonka stadium Muqdisho inuu horumar sameeyo Cabdi Kariim bariismaadkii waxaa lagu xasuustaa garoonkan inuu ka mid yahay garoomada inta ugu badan lagu qabto tartamada qaaradda Afrika kuwooda ugu waaweyn ma laga yaabaa in caasimada dalka Muqdisho ay mar kale martigeliso tartamada ugu waaweyn qaaradda Afrika oo ay qayb ka yihiin tartanka lagu magacaabo Sakaafaha bariga bartamaha Afrika oo Soomaaliya ay waqtigan qayb ka tahay ciyaartiisa waa mahadsantahay ciyaarahan gobolka Banaadir iyo Soomaaliyaba
mar walba Soomaalidu waxay dhihi jireen garoonka badda cagta ee u siman sida caalamiga oo kale inaysan ka jirin Soomaaliya hadda magaalada Muqdisho waxaa ka jira garoonka Stadium Engineer Yariso ee magaalada Muqdisho ex Banaadir ee koonis lagu magacaabi jiray iyo garoonka jaamacadaha oo isna si caalami ah loo dhisay haddana dib u dayactir ku socdo iyo garoonka Stadium Muqdisho sidaas oo kale garoonka Waama ee magaalada Kismaayo ku yaala ayaa si casri ah loo dhisay taas waxay ka qaadanaysaa in ciyaartoy tayo leh dalka Soomaaliya iyo guud ahaanba geeyiga Soomaalida ay degto laga helo hadda ciyaartoyda xulka qaranka Soomaaliya ayaa ku sugan dalka Uganda oo ka qayb galaya tartanka Sakafa iyadoo shalay la dheeleen ciyaartoyda dalka Djibouti oo barbardhac eber ee la galeen ciyaartoyda qaranka ayaa ka kala yimid qaybaha kala duwan ee dunida waxaan ugu badnaa ciyaartoyda ka imaan America Soomaaliya afar ciyaartoy kamid ayaa laga waday oo tayadooda iyo waxtarkooda ee bulshada ciyaartoyda dadka daneeya ciyaaraha ay aad u la riyaaqeen badalka ciyaartoydii shalay ee ciyaar garoonka waxaa loo saadaalinayay in ciyaarta ay ka badan doonaan Djibouti oo Soomaalida daris la ah maanta beri ayay la ciyaari doonaan ciyaartoyda xulka qaranka martigeliyaasha tartanka bariga ee bartamaha Afrika ee Uganda wala ciyaartaas aan la saadaalin karin Uganda ayaa aad u adag iyadoo Soomaaliya qayb ka tahay ciyaartoyda hadda ciyaaraya inay yihiin ciyaartoy ka ciyaarta saareedada dalalka ay ka yimaadeen kubadii shalay aan daawanay waxay ahayd kubad aad loo jeclaystay waxaan soo xasuusanay kubadii ciyaari jireen Brazil iyo Argentina ciyaaraha finaalaha markay iska hor yimaadaan Soomaaliyana waxay qayb ka qaadanaysaa inay noqoto wadamada ugu horumarsan dhanka sportska haddii sidaan ku socdaan intaan u gudagelin falanqaynta tartanka iyo diyaargarowga xulka qarankeena Soomaaliya uu u diyaargaroobayo koobka bariga iyo bartamaha Afrika aan dib ugu laabto tartankii degmooyinka gobolka Banaadir in loo qabto si joogto ah maxay uga dhigan tahay ciyaaryahanada kala duwan ee ka qayb galay waliba kuwa ka imanaya gobolada dalka oo qaarkood ba hadda ay ciyaarayeen marka laga hadlayo Jubbaland oo kale xidiga badan baa ku matalayay oo tartanka ka qayb galay oo degmooyinka u ciyaarayay maxay uga dhigan tahay marka xidigaha kala duwan ee tartankaas ka qayb qaadanaya markii uu soo dhamaado kadib waxa ciyaartoyda ka qayb gashay laga xushaa inay ku biiraan kooxaha Serie A iyo Serie B ciyaartoyda ugu badnaa ee sanadkan ka qayb galay isla markaasna ay daawanayeen macallimiinta kooxaha Horseed Banaadir Sports Club Elman iyo Genyo inay ahaayeen ciyaartoyda degmada Waaberi iyo ciyaartoyda degmada Dharkiinley ciyaartoyda degmada Waaberi waxa uu ciyaaray ciyaartoydii u ciyaareysay tartankii finaalka ee soo gabagabay 2017 ee xulka Jubbaland ay ku guuleysteen ilaa 5 ciyaartoy kamid ay ku ciyaarayeen magaca Jubbaland kaar ahaan ay ku matalayeen ciyaartoyda degmada Waaberi marka waxa la isleeyahay ciyaartoyda ka qayb gashay tartankan waxa u furan inay bedelkooda u ciyaaraan xidigaha ama kooxaha Serie A ka dhisan dalka ciyaartoyda qaar kamid ah horaal ayaa loo xushay waxa la sugay in la soo bandhigo kooxihii ay ku biireen tartamada kala duwan ee ka dhacay caasimadda dalka ee Muqdisho inta ugu badan xidigaha ciyaara tartamada kala duwan ee gobolka Banaadir ka dhaca waxa ugu badan xidiga ka yimaada gobolada dalka sida Jubbaland oo kale ama Puntland oo kale oo inta badan matalaad tartanka degmooyinka gobolka Banaadir ciyaaryahanadaas iyagana soo fursad fiican ma noqonaysa inay ka qayb qaataan tartamada xulka Soomaaliya oo ciyaarayo way ka qayb qaadan karaan ciyaartoy horay u dhashay xulalka ama kooxaha degmooyinka gobolka Banaadir ama xulalka ciyaartoyda degmooyinka iyo tuulooyinka dawlad goboleedyada gaar ahaan Jubbaland Puntland Galmudug Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed gobolka Banaadir ayaa loo waday qaar ka mid xulka qaranka markii dambana dib ayaa loo soo celiyay waxa u dhiman ayaa la leeyahay xirfad ka duwan xirfadaha hadda ku ciyaaraan tababarka xulka qaranka ee keedka ay hadda ku ciyaaraan ciyaartoy hor u matashay degmooyinka iyo maamul goboleedyada taasna waxay ka dhiganaysaa in xulka qaranka Soomaaliya uu saddex qayb u kala qeybiyo ciyaartoyda u xulanayo ciyaartoyda dawlad goboleedyada kuwa Serie A iyo ciyaartoy heer caalami ah oo ka yimaada qaybaha kala duwan ee adduunka gaar ahaan wadamada Yurubta iyo Amerika waa tahay caasimadda dalka maxay uga dhigan tahay in lagu qabto tartan xilli habeen ah oo waliba kamid tartamada ugu adag looguna aadkana looga xiiseeyay magaalada Muqdisho tan bilow maahan in habeen la qabto finaalka ciyaaraha degmooyinka 2017 ayaad markii ugu horeysay in la qabto tartanka ciyaaraha degmooyinka gobolka Banaadir iyadoo uu markaasi qabtay duqii hore magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed markii intaas la arkayna kadib waxay noqotay in xulka iyo ciyaartoyda qaranka Soomaaliya lagu aamini karo waqti walba maalin ama habeen in ciyaaraan ciyaaraha kubadda cagta waqtiga wixii intaas ka dambeeyay ciyaartoyda ayaa dhiirigelin u noqotay in habeen la ciyaaro waxaan hadda lagu ciyaaraa xilli habeen salaxyada kala duwan ee magaalada Muqdisho iyo garoomo gooni u leeyihiin kooxaha ka jira dalka taas oo noqonaysa in cimilada ay la qabsan doonaan Soomaalida in habeen la ciyaaraha wayay sanadkan maxay ugu duwan tahay sanadii hore tartanka oo markaasi qabsoomay ama la hirgelinayay guudaan tartanka gobolka Banaadir sanadkan wuxuu ugu duwan yahay in ciyaaraha la qabto saddex mar ayuu baaqday in la qabto
finaalka tartanka degmooyinka gobolka Banaadir iyadoo loo sabeynayo arrimo quseeya ciyaaraha xiriir kubadda cagta iyo wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha markii dambe ayaa la qabtay khamiistii la soo dhaafay iyadoo ay ka qayb galeen 13,000 oo taageerayaal ah xilli habeen ah in ciyaartaasi soo daawadaan iyadoo kala bar ay ka badan yihiin sanadkii la soo dhaafay ciyaartoydii kooxihii ka qayb galay iyo taageerayaashii ka qayb galay ciyaaraha finaalka 2018 waxayna noqonaysaa in Soomaaliya ay noqoto meel kubadda cagta dhalinyarada Soomaaliyeed iyo kuba jecelba ee u yimaadaan ay ku dheelaan waqti walba waayahay inta haddaan caddi karin uga soo laabano guud ahaan falanqaynta tartanka degmooyinka gobolka Banaadir maxaad kala socotaa diyaargarowga xulka qaranka Soomaaliya iyo bilowga kulankiisa ugu horeeya ee barbaraha markaasi ciyaareen tartanka bariga iyo bartamaha Afrika ciyaartoyda xulka kubadda cagta ee qaranka Soomaaliya oo toddobaadkii aan ka soo gudubnay gaaray dalka Uganda ayaa noqonaya ciyaartoydii ugu tayada badnaa ee lagu xusho guud ahaan adduunka waxaana ka qayb galay 28 kamid ah marka lagu daro macallimiintooda inay matalaan xulka qaranka Soomaaliya ciyaartoyda matasha shalay ee la ciyaaray Djibouti waxay hayeen ciyaartoy xirfad leh oo laga dheehan karay inay yihiin ciyaartoyda libaaxyadii Afrika lagu yaqaan Soomaaliya tartamadii ka qayb gali jireen iyadoo goolal badan ay shalay iska qasaariyeen markii la ciyaarayeen Djibouti waxaana noqonaysaa in xulka qaranka kubadda cagta ee dalkeena Soomaaliya haddii sidan ku socdaan in meel fiican ka gaari doonaan kubadda cagta ee ka socda dalka Uganda ciyaaraha bariga iyo bartamaha Afrika marka laga hadlayo xulista xidigaha xulka qaranka matalaya inta ugu badan waxa laga soo xulay ciyaarina qurba jooga ama qurbaha ka yimid xidigihii ciyaarayay ama ka ciyaarayay horyaalka Muqdisho ee caasimada dalka intooda badan lama soo qaadan maxay tahay sababta ugu weyn macalinka hogaaminaya xulka qaranka ayaa tilmaamay in ciyaartoyda matasha xulka qaranka markii hore laga xuli jiray gudaha dalka Soomaaliya xiriirada kala duwan ee kubadda cagta maamul gobolka Banaadir xiriirada gobolada ayaa ka qayb qaadan jiray inay xulaan ciyaartoyda ka imaana gobolada iyo kuwa gobolka Banaadir taas macalinka xulka qaranka uu ka doorbiday sanadkan iyo sanadkii horeeyba in ciyaartoyda si siman looga keeno adduunka waliba ciyaartoyda ugu xirfada badan ee ka ciyaara horyaalada iyo B ee dalalka horumaray ayaa hadda ka qayb galay tartankan 4 kamid ah ciyaartoyda xulka qaranka ayaa ka baxay magaalada Muqdisho iyadoo hogaaminayo xidiga Horseed ee la markii 8 u wata ee Xasaasa oo kamid ah xidigaha la barbar dhigo ciyaartoyda horumaray Iniesta Xavi iyo Pogba iyo Pirlo oo kamid ah ciyaartoy banaanka ka shooda kubadda isla markaasna birta ama goolhayahaba uu kubadda ku toosiyo taas waxay ka dhigan tahay in ciyaartoy asal la midana laga keeno qurbaha shalay waan ogeyn wixii ka dhacay dalka Uganda Djibouti iyo Soomaaliya oo laba dal oo saaxiibo ah daris ah ehel ahna inay wada ciyaareen inkastoo ciyaartaas Soomaali badan ay guul filayeen haddana ma aysan noqon ciyaarta ayaa barbardhac eber ku soo dhamaatay 90 daqiiqo ciyaartoyda xulka qaranka ayaa kubada badan dhinac mariya goosha iyadoo loo filan karay inay gool noqdaan waayahay maxaa markii laga filan karaa xulka qaranka Soomaaliya maadaama diyaargarow badan ay sameeyeen macallinkuna uu ku rajo weyn oo guul gaaro diyaargarowga ciyaaryahanada marka loo eego maxaa laga filan karaa kulamada kale ee ciyaari doonaan xulkeenu sida aan shalay daawanay ciyaartii xiisaha badan ee Djibouti iyadoo aan daawan doono bari kulan kamid ah kulamada ugu adag xulka martigelinaya tartankan ee Uganda ayaa noqonaya mid kamid ah kulamada Soomaaliya lagu ogaan doono in tartankan meel sare ama meel hoose ka gaari doonaan haddii Soomaaliya bari ay badiso waxay noqon doontaa in 4 dhibcood ay yeelato 4 kulan 4 koox ayaa ku jirta groupka ay ku wada jiraan Soomaaliya Djibouti Uganda iyo Eritrea kaasoo looga baahan yahay in laba kamid ah 4taas koox ay soo baxaan haddii Soomaaliya ay ka mid noqoto labada xul ee u soo baxaya xulka qaran koobka bariga iyo bartamaha Afrika soo ismariyi karo dabcan wadada guusha ee dhanka sportska ay dib ugu soo laabatay marka laga soo laabto kulamadii ugu dambeeyay ee guulaha ama markaas guul darooyinka ay kala soo kulmaysay koobkii World Cup-ka ee dalka Qatar sanadka 2022 la qorsheynay lagu qabto marka laga soo tago xulka qaranka waxa ka soo bilaabay guulaha labada sano ee la soo dhaafay Soomaaliya ku tigsanayso ciyaartoyda 17 jirada oo gaaray finaalka under 20 ama 17ka Afrika kuwaas oo markii dambe dalka looga qaaday 3 gool ciyaartii finaalka ee tageen Soomaaliya waxay noqon lahayd dalkii ugu horeeyay ku guuleystay ciyaar heer caalami ah ciyaartoyda juniorta intaas ka dambeeyna kulamo heer caalami ah soo ciyaaray xulka qaranka Soomaaliya guulo taariikhi ay soo gaareen walow kulankii ugu dambeeyay dalka ka soo bixi lahaayeen uu 3-1 ugu soo badiyay markii uu gudbi lahaayeen gurubyada stage-ka ee koobka World Cup-ka dalka Qatar lagu qaban doono tan waxay ka dhigan tahay xulka qaranka Soomaaliya aan ku ogaan doono bari guulaha ay gaari doonaan inuu sii socon doono iyo in kale kulanka bari ay la ciyaari doonaan dalka Uganda
kaasina waxa uu cabdikariin maxamuud ibraahim shadane oo markaasi aan qadka taleefanka kula xiriirnay toddobaadkan ila falanqeynaya barnaamijka garoomada ciyaaraha ee telefishinka Jubbaland. هذا أمضن